حتى الصلاة أن لا أقبلين قبله سلاها أوغادان salaadooda iyo cibaadadooda xataa la aqbali maayo ilaa ninkooda ay baari uga noqdaan ilaa ninkooda akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan ay kula noolaadaan xadiiskii Abdullah ibn Umar uu warinayay xaakimna uu ku saxiix yeelay mustadragiisa ayuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi ithnan la tujawizu salatuhuma ru'usahuma 'abdun abiqun min mawalihi hatta yarji' wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji' wuxuu nabigu sallallahu alayhi laba qofood salaadoodu madaxa ma dhaafayso ilaahayna kama aqbalo adoon sayidkiisa ka dhuuntay iyo haweenay ninkeeda ku caasi garowday oo fallaagowday oo ninkeedii fallaagay fadara ku noqotay oo ninkeedii ku madax adkaatay oo ninkeedii 24 saac ku buuqays oo ku qayliyaysa salaada ay tukanayso madaxeeda ma dhaafayso yiri nabigu sallallahu alayhi meesha acmaasha saalihaadka xagga ilaahay loo kor yeelo oo acmaasha saalihaadka adoonka ilaahay uu ka aqbalo ayada amalkeeda salaada ay tukanayso iyo soomka ay tukanayso iyo xajka ay xajinayso madaxeeda ma dhaafayo nabigu sallallahu alayhi walidaalika waxa loo baahan yahay mar walbaba inay ogaato islaantu in jannadeeda iyo ridaha ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku xiran yahay inay maaragtaa ninkeeda mar walbaba ay rila geliso taas nabigu sallallahu alayhi oo mar walbaba uu nugula dardaarmay waa inayna mar walbaba ay iska ilaaliyaan ninka iyo naagta isqabaahay markay doonayaan gurigooda inuu dhisnaado shayaadiinta insiga iyo kuwa jinka labadaba waa inay iska ilaaliyaan لأنه waxaa jira dad shayaadiin insi ah oo aan doonaynin raalina aan ku ahayn laba qof oo isku faraxsan oo qalbigoodu isku furfuran yahay nin iyo naag baari isku ah oo isqaba dad xusaad oo xaasidiina oo fiirin karin ayaa jira